صح وانما يدو توغتي وانما ادغو دشي gabdhaha waxaan ku dhahay ragga waa la nafaqeeyaa fiiriyo su'aal hadda kan gabdhaha way iga fog yihiin aan hal su'aal weydiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oo gabar walba aan ku dhaho caruurta guriga joogta yaa caruur ilmaha ugu yar yaa caruurta guriga ku joogta ilmaha ugu yar haween badan baan weydiiyay islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabar baa iigu yar aamus ninka kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka waliba waa idin sheegaya dhagaysta qofka ugu dambeeyay la seexiye ee sariirta la geliye go'an la huwiye caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runtii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysa dumarka raggiina dhaqaalaysa oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaaba u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalay ninkuna waa inuu masaajka barto xas isu masaajayn marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsarada iyo alyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga la dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga soomaaliyeed jacayl ma yaqaaneen من أديش تعلم وكجرم قال لي قال انتظر نوعات أو وتشعشان هذا بنك هذا الشيء قبلنا هوي ديو قبل كتبنا محاكاة حناتية سيان كاجا إلالية الله أكبر قبل كوكوعين ليش لأنه قبل مهمة ورهضان حناقه